إسلام فقشتية أول بقولة ده فوينا كم ده هيد أيها برام بركوغي يرابي بلوضي قول ودو سياد جيسي قول ودو سياد جيسي قول ايستهبي تريموكتي ودوا سنمتي markay aragtayna SNMT baa tirinay waa SNMT ka carar meesha guuleys laayna ka carar meesha taasina markay aragtayna SNMT tahay ayaa waxay tiri idin kala garan mayna guuleysta daba casar maalintii berberu ka baxay kabalaan buu kaga baxay wuxuu sheegtay sheekhash iyo qabiilada yaryar ee masaakiinta buu sheegtay متلباتن سنة قبيل كي سمو شيغان جيرين تبع عصر SNM بو كبقي جيري إساق بو كبقي جيري والو ديلي بو سولين جيري نيكا تبع عصر ولا شي وا كريستان دينتي كبخداي ولا شي وا كريستان ناغتو قبنا وا ناغ عدان oo iyaduna diin ma haysato ninka tبع عصر la yiraahdo idin ku sheekeynaya qoomaluud ma taqaana khaniis baargeysa joogada haya wala shii waa kristan diintay ka baxday si toosay diinta uga baxday naagtiisuna waa naag cadaan oo lama hubo inay muslim tahay cid muslimisay cid ashaadada u qabatay lama yaqaano waa hadba diinta cad kale dhaqan xumo qoomaluudnimo khaniisnimo haday tahayna isaga wax kaga horeeya ma jiraan dabada laga garaaca ninka la yiraahdo maxaa ku dhaaye ii sheeg baadari dabacasar hatta laga bilaabo baadari dabacasar baa la yiraahdaa haddaba waxa isweydiin mudan wixii xun baxawaale wax kasto oo Soomaaliland ka dhaca maxay u buubuniyaan garbahaad leemeynaan tagin caabud waaqmeynaan tagin gadameynaan tagin deegaanadu ka soo jeedo dabacasar waxa weey waa gada iyo garbahaad reeyo hal qof baa waxa loo dilaa 50 qof dhiiga sida u qulqula muslimku miyuu istilaa hadii hatta laga tag waayo adeerkii afweyne wuxuu ahaa adeerkii afweyn wuxuu ahaa ninkii aayadihii Ilaahay beeniyay ee diinta ka baxay ee shuuciyada qaatay ee idhi rag iyo dumarku way siman yihiin buu afweynina ee ummadan halaagay masiibadii Soomaali laga raacayba waxay aayadihii Ilaahay u beeniyay afweyne dhaqan xumada aabahood nimankii mucatabka qaatay ee kiniisadaha ka xaadiray markii SNM ninka Morgan leeyahay mucatab buu qaatay diintu ka baxay kiniisaduhu ka xaadira ragii taariikhda aynu ku dhignay baa maanta intay baraha bulshada soo fadhiistaan reeqaymaluud khaniisiin hargeysa waxana lagu qabtay dahaya haddaba waxaan idin tusayaa walaalayaal dadka khaniisiniinta ah ee qoomaluudka ah ee diinta ka baxay ayaan idin tusayaa haddaba soo dhawaada Soomaaliland amba waxay noqon qoomaluud amba Soomaaliya qoomaluud noqon waliba dadka uu ka soo jeedo dabacasar horta dabacasar hadduu cid wax ka sheegayo walaashi qoyskiisa horta diinta ha baro nin sheekh sheeganaya dhaqan xumadiisa aad ka aragtaa horta sidoo uu yahay naagtiisa uu qabaa lama hubo inay muslim tahay waa naag cadaana lama hubo walaashina diinta way ka baxday oo waa kristan way isaguna waa hadba diinta cad kale oo marna wuxuu ka xaadiraa kiniisada oo mucatab uu qaataa marna waa qaal Allah weeyi beerku ka laagay diintii iyo sheekhnimadii waa sheekh aakhir sabaan inaga culimadeenu dadka miyay caayaan sheekh maxamed sheekh umar dir baa inaga dhashay waxay naga dhashay sheekh mustafa xaaji haaruun waxay naga dhashay sheekh aadan siiro culimo badan oo sharaf iyo cisilay naga dhalashay dacwada iyo diinta si sharaf iyo cisilay umada u gaarsiiyaan dhaqan xumada iyo diin la'aanta aad ka garataa inaanu muslim ba ahayn oo uu yahay baadari dabacasar haddaba ila daawada fiidiyoyadan ila daawada haddaba maana naqiya roob waatan walaashi xildhibaanad bay ahayd xildhibaanada Soomaaliya ka mid ahayd diinta si toos ah uga baxday Facebook waxa dabada dhaxyaayo dumar Soomaaliyeed iyo rag Soomaaliyeed oo dhahayo waxa qaadanay diinta Masiixiga muddo 15 sano laga joogo dumar Soomaaliyeed oo waxaan rabaa inaan masiixkaaniti aad ila wada ogaateen qaarkiin waxa laga yaabaa inaysan ogeyn dadkaas maanta message soo diraayo ay dhahayo anaga Masiixiyan qaadanay inay kamid yihiin dad xibin ka soo noqday baarlamaanka Soomaaliya waxayna noogu wacad maanta inoogu dhawaaqaysaa
kasoo qayb galno diinta masiixiga inaan ka mid noqono acuudu billahi min shaytaan rajiim ilaahay cizziga ee qalqaale ee maanta intaan iga dhigay sumcadeeda soo gaarsiiyey islaamnimo ayaa maanta ka tuugaya inaan maanta gadaal ii celin alxamdu alshukr ilaahay asaa mahad iskale waxaan rabaa inaan wax ka ogaataan gabadhan la dhahayo nasra cabdisalaam magacayga waxaa la yidhaha nasra cabdisalaam waxaan deganahay sweden magaalada esloof waxaan ahay soomaali masiixi waxaan qaatay masiixiyadda 15 sano ka hor ciise waa badbaadiyahayga waa ilaahayga سبحانك يا عظيم سبحان الله رب عزتي وعما يصفون والسلام على المرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واحد الأحد فرد السمد رب السماوات والأرض وتبع سر ولا شيء وتبع سر ولا شيء ناك تعالى مسيحيات بانه ninka hargeysa ku sheegaya dhaqan xumiyo qoomaluudnimo muxuu walaashii u qaban waayay isaga laftiisu dawaa baadari dabacsar haddaba waxaan idin tusayaa meesha dhimatay ee ku abtirsata khaniisnimada ayaan idin tusayaa bal waxaan ila eega haddaba idinkaa qosla caawa waad aragtee sow maaha waa dabacsar walaashi weeye xaaskiisuna waa naag caddaan ah iyaduna diinta may soo gelin waa kristiyaanad weeye isaga laftiisu waa hadba diinta cad kale baadari dabacsar ila daawada Soomaaliya sida u dhantahay waa qoomaluud السلام عليكم السلام باي معاه معايا صافينا باشا ما شاء الله عليه واقعنا والله محايسة ولا أقف عنها الحمد لله أنا ما واقعنا اوكي waxaan rabaa inaan wareysi ka qaado aan ku imaaday ama aan ku soo socdo maadaama qof Soomaali ah islaan ah tahay astaamaha ayaan kaaga jeeda inuu qoso ku marsan yahay inay ilir ku xiran tahay inaa barada fiiqayso inaad jika ku jirto cunto kariso marka bal afkaaraha wax iiga taataabo sakta qofka ku wada ku sheego aniga weliba marka si waxa soo ku marsan qofku xataa رقوملود ناس دارية ناس قاب ما شاء الله قول خاصة وحشيبك بلوضة محارق النماذج كان قاعدة كتبت معايا الصفحة ما شاء الله اوكي ما حنقول دي waxaan hadda fiiqaysa waxaan jeedaa waa qudaar waa burada waa cuntada cashada caawa akrinay sida ay sheegtay waxaan ku weydiinayaa dawladda Soomaaliya cabasho u dhiibatay inaad يعني لبنتها أو سنة موشفة ما يا باي دولتين ودولت سومالي لما هي وحن شيكرا من يدوتا يرسو وحن حاجة من دين أم متسانين لما أوكي ما شاء الله وحن كله كويدي هذا ما غير بعدان نورشون ونورشان خودانته هنا اسبدلس أو يعني أخصو أنا قلت أخت نصابي هوري أحسن ما هي الدلالة وكرا الله يسيد السلسون اوكي marka meela ka soo laabato ma joogtaa oo yaani maadaama hadda tirnina ma aynayna ma فريق بقضنا رقوملود رee khaniis iyagoo dhaqan kaale unba inta media soo fadhiistaan hargeysa sidana Somaliland ba sidana fariiq ma qodna sida beertay uga baxan dadkani adduunka la isma rafaaday waa xoogada sheegaysi banaankiisa ogaadana yurub sharciga shaqeeya aan ku taaban aadin ka shaqeysana muudo yaa ii bootee waan ku taajira hawlaada meel qashin igu arkay muudo iyo mooriyaanimo meel isku dilay mar meel glaasi ah wareegay qoriga keeno la socda Soomaali wadna joogis waay farmaajoygeeya ma tiri farmaajoygeeya ya
hasha geela cuntee haddana cabaada maroodigu tagarta saaran ma arkee ta kale ta saaran buu arkaa weli fari kama qodna weli caawa waydun qosli sheergareeya fiidiyooga فهذا كل حدين القنيص واي الصومال واي لكن القنيص دارتي أنا واي محاي خالد محاي مسمي كستي اللي كان محلتين بيني بنوي tani waa saleelo ninkii ay shanta nin kufsadeen ayaa idin hadhay saaxiibayaal baadari dabacsar weliba kii hore aan idin soo dhigay baadari dabacsar baa ayaa dhalay waa baadari dabacsar baa dhalay waa ciyaala baadari dabacsar weeye dhaqan xumada aabaheed ninkii la kufsaday ee muqdisho lagu kufsaday baa idin hadhay saaxiibayaal ila daawada dhaqan xumada aabaheed محمد عبد الفارح ما شاء الله قبل اسمها جودي أنا خمسة وفين كسماء باتو هذا وحن جبنا من بلي يركي أو دواتي السوق جالسي أو دواتي السوق جالسي في الكيس عبد الله واد بلوده والله واد بلوده ورقم كاتل يركي ما سواك يركي هو يركي أو دواتي السوق جالسي أو هذاري كلوا وقف كاسيرة يركي سواي دمان ما ماذا هو يقول واتنا ما شاء الله بكاميرا وحنا كسودي كاميرا وحنا كسودينا إن حدي الله ودي الأدماء إن بدونيها محمد عبد الفارح هذا مقبول ما شاء الله كسودي وكاميرا الحمد لله رب العالمين نقول على محمد عبد الفارح وجنس مال الله هي كانت دفعت لسوق الحمد لله رب العالمين كان سوق عارف إن شاء الله مكوا حنجعلها ورالها فكرنا ما الحمد لله رب العالمين واحد ما خبطان والحمد لله ويكان دباتيسن هنا واحد ما خبط حيان ورالنا كل سنة إن شاء الله ما دام الروح صارنا لماذا كان قيادة وزير عن صارنا يدنا حوجها دلنا مع الله عن كل شيء قينا ما جح فانتو كل شيء قينا الحمد لله واحد نصفوس على دباتو واحد دباتو نصفوس قال الله ما لا يان ورالنا الحمد لله فانتو فكرنا waxaan ku xisinaynaa dhibaatada ninkan walaalkana soo gaartay inay wax naga qabtaan maanta isbitaal ku geeyna ma haysano isbitaal waxay ku geeyaan ma hayaan shan nin baa ayaa garaacay shan nin muqdisho ayaa arintani ka dhacday waad arkaysaan walaalayaal wixii xun baxawaale waxaasi ka dhacayaan waa Soomaaliya ilaahay waxa uu halaagay waa dhaqan xumada waa qoomaluudnimada waa xaasidnimada waxa weeye xaqiraada waa diin la'aanta diinta afkay ka sheegtaan mooyaane guurka markay noqoto waxay isku guursadaan waa qudbisir ilmaha qudbisir ku dhashaa waa ilmasine way xalaashadeen oo caadi bay ka dhigeen maxaa looga hadli waayay arrimahan hargeysa miyaad ku aragteen nin shan kufsadeen ma ku aragteen khaniisyadii ay soo bandhigeen ma ku aragteen hargeysa Soomaaliland ma ku aragteen dhaqanka waxa leh Soomaaliya haddaba aanu soo noqdo baadari dabacsar isaga qoomaluuda oo khaniisa oo dhaqan xun oo sharaftii diinta meel kaga dhacay Soomaaliland intuu soo eegayo gobolku ka soo jeedo ee mataqaana caabud waa hal qof baa loo dilaa konton qof loo dilaa Allahumma salli ala Muhammad dhaqan xumada koonfurta Soomaaliya taa waxa ka sii daran ciidamada amisom nin waliba waa Kristan weeyo horta waxay u badan yihiin waa gaalo ciidamada amisom gobolku markuu dhaco gawaari VIP bay soo kaxaystaan gobolada dalka oo dhan gado maxaan ku dhaayay Kismaayo Allahumma salli ala Muhammad caabud waa meelaha reer dabacsar degaan oo dhan meel walba gawaari VIP inta soo qaataan ba hablaha yaryar waxa ay kalmada kaga qaraacaan عشا وح كير بيه وح كير بيه سيان وح كلام سيان أمي الصوم هديتهاي خنيس نما هديتهاي محان كولاي قوملو نما هديتهاي دين الآن هديتهاي إلهي وح وهلا جيبا ما أنت أي طلعي توفيق وهشين لا ينديك وقلقليا وأنا كان حمد أبهدوي واسيدي يهودا
dadkii munaafiqiinta ah inta wax walba sameeyaan haddana qaala Allaahun odhanayay marka adiga ku caayayaan waa culimo marka ku fursanayaan waa sheekhiyo marka iyagu amisom hablahooda u kireenayaan ee qoomaluudnimada iyo khaniisnimada ku dhaqmayaanna waxa weeye waa dad wanaagsan weeye tabacasar waxaan u malaynayaa faqashnimadu un baa ka hadlinaysa malaynayaa iyo cadaawada inoo qaba yaa malaha Soomaaliya kuma noolaan malaynayaa koonfurta Soomaaliya waxa ka dhacaya walaalayaal reerihu ka soo jeeda hadaad aragto dhamaantood diintay ka wada baxeen macatab bay wada qaateen haybtooday ka faani jireen afweyne inagu markii aanu dawladnimada qaadanay hawiyeynu geynay inagu markii aanu dawladnimada qaadanay hawiyeynu geynay hawiye runtii dantiisa ma yaqaano laakiin wuxuu leeyahay dadnimo leeyahay dimuqraadiyad buu ku wareejiyay aadan Cabdulla Ali dimuqraadiyadii markuu ku wareejiyay waxa uu u gudbiyay Allahumma salli ala Muhammad Umar Abdirashiid Ali Sharmaake Abdirashiid Ali Sharmaake ayaa taladii lagu wareejiyo nin daarooda ahaa Abdirashiid Ali Sharmaake waxa inqilaabay afweyno taqaanaan afweyna hadaba dambigii uu galay waxay ahayd wuxuu noqday Hitler ayadii Ilaahay buu beeniyay diintii shuuciyadu qaatay ummadii buu waxaan ku yiri halaagay rag iyo dumarku waa siman yihiin bay yiri ma taqaana culimada waa kii kurka ka guray maalinta ka mud dambeyn afweyne markii aynu dhakada u rognayno madaxoogii midja u rognayeen magacoodii ifka ka masaxnayna marka ay meel ay galaan waayeen cabsi darteed qabiilkooda may sheegan jirin jaarsa iyo waxay sheegan jireen jaarsa iyo ma taqaana sheekhaas iyo qabiilada yaree masaakiinta ay sheegan jireen dir iyo ay sheegan jireen muddo 20 sano qabiilkooda may sheegan jirin baadari daba casar iyo cabsi waxay ka qabaan way qarin jireen qabiilkooda markii dambe meel ay galaan waayeen Morgan kiniisad buu ka xaadiro mucatab buu qaatay meel alla meel isku aamina markuu waayay tuke sidaas leeg daba casar karimka qeylqeylinaya ragii kiniisadaha galay buu ahaa ka eedaamay mucatab ka qaatay meel ay isku aaminaan markii waayay taariikhda ragii ku dhigay way nool yihiin waa Ahmed Maxamuud Siiraanyo musabbiixi baa kamida Ahmed Maxamuud Siiraanyo kamida waxa kamida dhaga weyne ina kaahin baa kamida ina miraa kamida rag badan way nool yihiin maanta malayna dhibtay waxay ugu nacabiyay bal daba casar u fiirso faqashta u fiirso waxa ay mar walba ataagaan waxa weeye waa madaxweynaha Ahmed Maxamed iyo mujaahidiinta Sanambay ay taagaan waa yuhuudi waa xabashidii waa waxaasay shubaan waa ragii intay magacooda ifka ka masaxeen madaxooga miji u rogay ee kiniisadaha ka xaadiriyay ee abtirsiinta u diiday qabiilkooda u diideen inay sheegtaan sheekhash bay sheegan jireen cabsi waxay ka qabaan ragii way nool yihiin maanta mar labaad haday hadalka sii badiyaana madaxooga magacooga inta ifka laga masaxo ayaa magacooda mijaal loo rog sidoodii bay kiniisadaha ka xaadiri doonaan wallahi billahi taala hadaba waxa loo baahan yahay walaalayaal dadkaygu waa dad cawaana weey waa dadka ugu liita Soomaali daba casarna macaayeen daaroodna waxba kama sheegeen hawiyana waxba kama sheegeene aqliga xabxabkay leeyihiino nin walba walaalbay ka dhigtaan daba casarka caayaya qaar baa jecel ilaahay baan kugu dhaarshay qaar baa qoranaya hawiye ma wada xuma daarood ma wada xuma war dhamaantood waxa ay nacab yihiin waa magaca isaaq weey hawiye waa ka daarood ka raacay lixdankii marka dawladnimada u diidayna intuu adiga daaqada ka saaru daarood doortay oo isagii la xasuuqo adigii lagu xasuuqay adiga daarood waxba uma diibana laakiin hawiyaad u dhibatay ninkii ku baabiya maantana ninka dabada ku wata ragii kiniisadaha ka xaadiray ee qabiilkoodii sheegan kari waayay waa hawiye weeyaan dhammaan BBC-da waxa ka hawl galaa iyo VOA-da iyo warbaahinta ee dagaalka inagula jira waa hawiye
daarood godobtiisa waad ogtay maxaad ka gashay hawiyo waayahay dantaadii baad garatay dowladnimadaadii baad goboladaadii baad xareysatay nabad baad keensatay horumar baad keensatay maxaa lagugu caayayaa maxaad ka gashay markaad xisaabtami weyday markaad aarsan weyday marka aad hadli weyday in maanta lagu dhaa khaniis iyo qoomaluud baad tahay adigaa galabsaday waa adiga qaladku qalbi xabxab waxaad leedahay muxubbadii dumarkaad leedahay waxaa la yidhi dumar umushu markay umulayso waxay tidhaahdaa ilaahayow iguma ogid mar dambe nin dambe ilaahayow iguma ogid araggiisaa dhiba habeenku ilmuhu soo dhaafo ayay mataqaanaa ay tidhaahdaa mee odaygaygii umushu kama ilbaxda galmada innaguna umul baynu noqonnay qaladka innagaa iskale waxa ku caayaya ee brobogandiya burushka xaarka la ku marmarinaya waa faqashtii weeye waa dadkii kiniisadahaad ku urursay weeye waa dadkii diinta ka baxay cabsidaada uga baxay weeye waa dadkii aad badday inay abtirsiinimadooda ay qariyaan oo ay jaarsay iyo sheekaash iyo sheegtaan weeye dadkan ku caayaya ee baraha bulshada fadhiya adigiina waxaad leedahay waa qayb baa wanaagsan bal maxaad ka haysataa dalkaagii baad dhisatay dadkaagii baad dhisatay maasha allah tabaaraka allah waxa iyagu maanta garan kari laayiin baad garatay muuminka laba god lagama wada qaniino mar bayna khiyaameen inagamay faa'iidina magacoodii baynu ifka ka masaxnay kiniisaday ka xaadireen mucatab bay wada qaateen diintay ka baxeen cabsidii ma garatay waad fahantaan u malaynayaa marka ay dagaalami kari waayeen ee ay waxba ayaa wax kastoo horumaroo kuu soo kordha burush xaar lay marmarinaya war annagu somalilan haddaan nahay annagaa ka mas-uula berbera nin daaroodi kama hadli karo hargeysa nin daaroodi kama hadli karo nin hawiyiina kama hadli karo awoodee buu kaga hadlayaa dhaqan xumo hadday noqotona waa dhaqan xumada aabbahood yaah dee amisomta hablihii yaraaye soomaaliyeed dhiigga beerkay kala baxeen maasha allah xere waxaa jirta ku taalla xamar duleedkeeda carruurtay amisom dhalay ayaa lagu xanaaneeya carruurta amisom dhasho ayaa lagu xanaaneeya waa wada muwalad koonfurta soomaaliya haddaad muqdisho tiraahdo hagee maxaa tahay adigu qolo kuu sheegi maayo aabba kuu sheegi maayo aniga xamaraawi waa nahay xamaraawi haddaad maqasho waa muwaladkii talyaaniga waa muwaladkii bortuqiiska waa muwaladkii mataqaanaa hindida waa muwaladkii yamanida waa muwaladkii amisom kuwaasi waabay cadcadaayeenbe waabay qurqurux badnaayeenbe qaarkoodba gaalaha aadaane amisom oo sanka aad madaxaaga aad moodo oo timaha aad moodo taygas ilaahay sameeyaan ku dhaartee shinni iyo duqsiin madaxa kaga ururay baad moodaa nimankaa burundiga iyo ugandhiiska iyo kenyaatiga raggaasaa ka dhiigaystay carruurtay dhaleen haayad baa waxay ugu samaysay duleedka muqdisho xero weyn oo soos la yidhaahdo halkaasaa lagu koriyay carruurta amisom dhashay waa soomaali hooyadii waa soomaali isaguna waa amisom haddaad tiraa in ayaad tahay in amisom baan ahay buu ku leeyahay waxaasaa ka socda dulmigaasaa ka socda dadka maraykanka keenay ee etoobiyaanka keenay ee gaalada dulkoogii ku soo haday dadkii idhi hala ansixiyo xeerkii sinjiyadaha raggu inay ragga u tegi karaan dumarkuna dumarka u tegi karaan waxay ahaayeen dee waa nimankaa waa dadkaa dabacasar ka soo jeeda iyo maxaan ku dhahaye baadari dabacasar dadku ka soo jeeda iyo waa tii culimmadu ka hadashay ee laysla sare kacay haddaanay culimmadu kicin oo aynaan xitaa inagu ka hadlin waa la ansixin lahaa in ragguna ragga u tagaan dumarkuna dumarka u tagaan maraykanka yaa keenay etoobiyaanka yaa keenay kenyaatiga yaa keenay dee baadari dabacasar dadkiisaa keenay garoowe dhalinyarada inta laga ururiyo hablaha maraykanka gacanta loo geliyaa waa al-shabaab baa laydhaa dhalinyar aan 20 jir gaadhin ayaa inta laga ururiyo oo weliba hawiye u badan dadka mudug dega hawiye u badan ayaa loo dhiibaa maraykanka waa al-shabaab baa la yidhaahdaa
labaatan jir miigaana qaarna dil toogashaa lagu xukumaa waa gaala yar weeye waa afdheer itaal baranbaro waxa weeye waa afka nool itaal baranbaro inta ay ku faragashadaan ay wax kaa sheegaan ayay haddana marka dambe ka xaadirayaan Bob Faras hello Bob Faras ha diintaan ka baxay Bob Faras diintaan ka baxay ha waxa la igu dilayaa diintaan ka baxay ii badbaadi dabeedna Mareykan bay la hadlayaan nimanku waa gaala yar waa kuwii mudug daroniska u soo adeegsaday ee waxaan la dagaalamayna argagixiso nimankii Mareykan ka cunay intay dadka afka dheer la galaan bay gaalada hoos cararaanay hablahoodana ku casuumaan naga soo gaad Bob Faras ha diintaana lagu dilayaa waa wada baadari weey waa dadkii diinta ka baxay waa dadkii aayadii Ilaahay beeniyay waa dadkii Soomaali halaagay ee maanta Soomaali halka ay ku kala maqan tahay iyagu inay hadlaanba ma ahaba inaga inay nala hadlaanna maaha waxaynu nahay dadkii taariikhda cajiibka ku dhigay wallaahi billaahi muddo 20 sano qabiilkooda may sheegi jirin ninka mareexan hada tira waa qolama tahay ya xitaa luuqadu bedeli jiray uu ku hadlo luuqada ya ani sheekhaasha lahaye ni sheekhaasha ayaa lahaye anagu da culimaanu nahay oo dambi ma gallo oo muddo 20 sano qabiilkooda ayaani sheeganin wallaahi billaahi gawdhe caawa waan iska baashaalaynaa kuwan ku xooqimayno sawirkii dhabtaa waad aragteen waxa khaniiska ee dhaqanka xun leh ee diinta ka baxay ee wada baadariga rag iyo dumarba waxa weey waa baadari dabaca sar dadku ka soo jeedo rag iyo aayadii Ilaahay beeniyeen waa iyaga Mareykanka kuwa keenay waa iyaga waxa wax laga xumaadaa madaxweynihii Kenya isagoo dirays ku jeen qaaran oo diyaarada helicopter wata ayuu degmada Dhoble leeyahay ka soo degay cidna kama amar qaadan yaa waday baadari dabaca sar dadkiisa waday waa madnuuc caalamka bila amar inuu madaxweyne kala dal kala ku galo isagoo dirays military taasi waxay ku tusaysaa in Soomaaliya ay gacanta ugu jirto Kenya iyo Ethiopia maanta ciidanka Ethiopia dadku laayay waxa uu ku bushaareynaya xarmaajo waxa uu bilaabay dariiqii afweyne wax ka qabyaalad xun oo ka afdheer oo ka cayb badan oo hawiyaba waa la caayay cid caaysa miyaad arki jirteen dameer calise markuu isaaq caayayo commentiga laga bixiyay sida loo shargareeyo waad yaabtaa baadari dabaca markuu isaaq caayayo 2000 oo qof ba hal daqiiqo ku soo urura nacaybka leeynoo qabay taasi muujinaysa marka iyagu iscaayayaana cid alle cid commenti ka bixisa ma jirto waxay yiraahdeen Ilaahay ka baqa walaalaynu nahay Soomaali waa mid waa nacaybka lagu qabay taasi muujinaysa haddaba waxaan idin sheegayaa ninka idin caayana waa faqash ka idin amaanana waa faqash Soomaaliyana marka laga reebo dadka banaadiriga iyo dadka la yiraahdo biyamaal dir inta kale oo dhani way nugu cadoway waa dadkii aanu ka adkaanay heestan aanu ku yara baashaalno share gareeyo fiidiyogan khaniiski waad aragteen ma garat maana waa baadari weyn bal Ilaahay baa ku dhaarshay sidoo eegyahay bismillah waa Bob Faras weey waa shaydaankii ugu weynaa Bob Faras bolotumna waa waxa bilaa dhaqanka weey sheekhooguna waa ka nacdali kugu dhacday baadari dabaca sar Bob Faras naalash war wuxuu muxuu ahaa bismillah shaydaanka iska naara استاذ توكي مي با سو دو
allow ku gargaaro kayga nabado dadkana garasii libiyo gobonimo dadkana garasii libiyo gobonimo allow ku gargaar dadkana garasii libiyo gobonimo dadkana garasii libiyo gobonimo wanaaga adkaadhe u kaambinayo yaani soo gudbane kahay gaadhko ka jooggoya bishaarada bay ku tahay gubasho wanaaga adkaadhe u kaambinayo inay galbiyaan u soo guntadeen kahay gaadhko ka jooggoya kahay gaadhko ka jooggoya ku gargaar allow ku gargaaro dadkana garasii libiyo gobonimo dadka
ciyaartii way soo socotaa aydhiin may allow ku gargaar dadkeena garasii libiyo gobonimo dadkeena garasii libiyo gobonimo godaha dhigato bike kalada guracaani garnaad ka tagtee mujaahidka halay god madow gudaha dhigato talada guracaani gunaad ka tagtee inay sabaaxor yahay geygi wale magabe gulow hadaa wale magabe gulow hadaa allow ku gargaaro gayga nabado dadkeena garasii libiyo gobonimo dadkeena garasii libiyo gobonimo allow ku gargaaro dadkeena garasii libiyo gobonimo dadkeena garasii libiyo gobonimo nabi allahumma salli wa sallim ala rasulillah gabigii gacmaha isqabsada kahay gaarko ka joogooyaha magabe gulow mahata الله يعسك xidigii geeska gaari baa la dhacay way cawriyeen kuwii xumxumaaya xaasidiinta bayna cawriyay ilaahay caafimaad saraacan ha siiyo wali warkaasi ma sugna cid siday wax u noqdeen wali lama soo sheegin laakiin ilaahay waxaan ka rajeynayaa in uu caafimaad saraacan ha siiyo cidii ku dhaawacantay ilaahay caafiyo xidigaa geeska Somaliland ninka heeseeda diidani waa nin Somaliland nacab Somaliland fan iyo suugaan baa lagu xoreeyay walaalayaal waxaan idin sheegayaa anigu waxaan ka hadlaa waa run qadaadweyntii waxay bilowday sixir bay bilowday hadda boorame inan bay ku sixreen waa reer boorame maxaa ku dhacay un baan idhaahdaa reer boorame Soomaaliyana waxba kama aha oo waa tan la bahdilay waa tan xitaa aan loo ogolayn reer boorame waxaan waalay waa meesho waa la sixray dadka si waalanna way u soo dhaweeyeen reekof qadaadweyntana haddii qadaadweyn aad soo dhaweynayso adigoo ay soo dhaweystaa ayaa ka wanaagsan ninka qadaadweyntii ciddu doonaba ha ahaadee wuxuu ku maqan yahay waa naftaada iyo maalkaaga iyo dalkaaga wax kale uma socdo haddaba waxaa idin tusayaa inan reer boorame ah oo ay sixreen baan idin tusayaa mar horaan sheegay war waxa wax sixraya war waxa wax xadaya war waxa dalkeena dibta ka wada waa qadaadweyne xukuumaddu waa inay soo raaftaa waa diideen soo maaha sixir bay bilaabeen iminka sixir bay bilaabeen ay la daawada oo fiidooga sheergareey walaalaya waxa gabadhani lagu sirxay gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaana maan doorisay
gabadhaasi gabadh ay bajaaj wada raaceen oo u dhalatay magaalada Muqdisho ee dalkaasi Soomaaliya waxayna gabadhani mar walba ku hantaaqaysaa hal ii geeyo gabadhii i taabatay gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal hooyada dhashay gabadhaasi la sirxay ayaa waxay ka sheekaysay waqtigii ay ka baxday gabadhaasi xaafadooda iyo xaaladda waqti xaadirkan ay ku sugan tahay gabadhaasi daada yar ee la maandooriyay aye goorma idin sheegay oo nidhi dadka wax sixraya ee suuliyada kamaradaha ku xidhaya dhaqan xumada aabaheed waxa ay bilaabeen wax loo dul qaadan kara maaha yurubgeenya sixir iyo kamarad baa la iskugu daray inoomay soo caban inanta yurubgeeyana ha loo gurmado cabdimaalik muuse cordoonna sixirka ha laga rogo wax kasta oo ay nagu baabiin karayaan way bilaabeen ree awdalla sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar iyo culimada ha loo kaashado oo dad badan bay sixreene iyagana ha loo gurmado somalilandna ha laga raafo sheekadu life laga hadlay iyo cid loo jawaabay iyo ingiriis baana gumaysan jiray iyo dowlad baanu nahay iyo 60kii baanu isku biirnay iyo walaalaanu nahay way dhaaftay waxay bilaabeen inay caruurtii cunaan waxay bilaabeen sixir waxay bilaabeen inay xadaan caruurta waxay bilaabeen inay guryihii kamarada ku xidhaan dhaqan xumada aabaheed maxaa looga hadli waayay hargeysuun bay wax yari ka dhiciyo alla siday noo mashquuliyaan dadkeenana faan iyo ammaan iyo iska dhaadhicin baa dishay nin waliba wuxuu isleeyaan lagu ceebayn ma ceeb baa kuu hadhaba sheekadu meel xun bay maraysaa ilaahay amarkiisa war horta dee dadkaygu way wada sixran yihiinba qaarna qaad baa lagu sixray iminkana waa taa soo shaacbaxday anugu goormaan laa war dadku caadi ma aha war ha laynaga qabto waxaan ugu baaqayaa shacabka somalilan iyo xukuumaddaba dadka qadaadweynta in dalka laga raafo waayo waxay bilaabeen arrin khatar ah oo diintii iyo dhaqankii khatar ku ah kamaradihii bay suuliyadii ku xidhayaan iyo guryihii caruurtii bay sixrayaan caruurtii bay xadayaan caruurtii bay cunayaan sheekadu meel xun bay maraysaa dee markaa idinka idiin taallaa sidaad uga tashanaysaan idinka ayaa idiin taallaa waa laysku haystaa wixii xuduudka kaa galay waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii wadahadalka kula galayba waa laysku haystaa soo wadahadal lamaad gelin adigu sow maad odhan walaalaanu nahay sow maad odhan jaar baanu nahay ka xaabxaabi hee waa halkoodii ya ka xaabxaabi hee talow saacadda maan eegin wakhtigu bilaabmay fiidooguna inuu gaaban yahay buu ku wanaagsan yahay heestaasaan kaga baxayaa war ilaahay baan idinku dhaarshee dadkan inaga qabta war dadkani cadow bay nagu yihiin war wayna la dagaalamayaan war naftaaday ku socdaan war maalkaagay ku socdaan
wardalkaagay ku socdaan waa kuwa berbere iyo hargeysa oo nus milyuun lagu waayay oo naf iyo maalba aynu ku soo ceshanay waa kuwa ka doodaya maanta ee nin walood aragtaba hargeysa iyo berbere ka hadlayo berberaa lagu socdaa hargeysaa lagu socdaa gabiley baa lagu socdaa naftaadaa lagu socdaa maalkaagaa lagu socdaa bal doqoniimadaada inta aad walaal dadkii aad madaxooga mijo u rogtay ee nus milyuunka ku weyday maxaad u dagaalamaysa haddaad wada hadal la gelayso maxaa ku dhibayay maxaad caruurtii u leynaysay dumarkii la xasuuqay maxaad u leynaysay dadkii miyiga maxaad u leynaysay hantidaada maxaad u baabiinaysay haddaad aayar walaalaan u nahay iyo wada hadal baan la gelaynaa aad leedahay maanta dadka aad isku soo daysay waa faqashti waa cadowgaagii weeye cadowgaagii intaad isku furtay ood isku faruurtay ayaad tiri walaalaan u nahay qof kasta oo taga muqdisho waa la sixraa qofka waayo si kale oo maanta qadiyadaada lagula dagaalami karaa ma jirto bahalkaana way ku dheereeyaan markaa walaalayaal waxaan idin leeyahay xukuumadda waxaan ugu baaqayaa kow horta ku odayaasha xunxume ee hunguri dhaqameedkaa maaragta ee horumar kasta ka soo horjeedsanaya axmed maxamed maxamuud siiraayo sidii maxamed xaaji ibraan cigaal allah yarxam araaximiine maxamed xaaji ibraan cigaal baa markii dagaalkii sukeeye dhacay ee ciidamada hubka laga dhigayay bal ilaa waqtigaasay dhibaatada wadeen hunguri dhaqameedyadaas qaad hadduu waayo ummadan oo bilaa biyo ah oo bilaa laydha oo bilaa waddo ah oo abaarahayaan oo macluulaya qaad hadduu waayo mijintaa qaadka ah ayuu mashaariicda kaga kala kicinaya oday dhaqameedkaa xun waa hunguri dhaqameed maxamed xaaji ibraan cigaal allah yarxam araaximiine burca ayaa wuxuu uga yeedhay salaadiin fara badan duruuf adag baa jirtay oo dhaqaale lama haynin dabeedna waxay codsadeen hunguri dhaqameedyadii wax alla wixii ku abtirsanayay barigoo dhan in baabuur loo soo diro oo la qaada kharash lagu kaxeeyaana may jirin waa arrinta yar ee markaa ugu muhiimsan dee beelaha matasho uun baabuurha loo soo diro ha loo yeedho hargeysaha lagu wada hadlo way diideen wixiiba waa ku wedhi hanalka wixiiba waa la soo kaxeeyey hargeysa markay kusoo dhawaadeen unbay iswaaleen waanu noqonaynaa ma rabno hub ma dhigayno dowladnimo ma rabno soomaaliyaanu raacayna maxamed xaaji ibraan cigaal iswaar ka qabta uun buu yihi wax kala abta dowladnimada iyo horumarkay sixir ku yihiin waar ma oday ma hunguri dhaqameed baanu bar wallaahi gebigoodiiba malaha 200 oo hunguri dhaqameed wuxuu ku guray jeelka dhexe hargeysa barna ma dheer u diray sandulle ayay ku ogolaadeen maanta hunguri dhaqameed inuu dalku u curyaamo loo dul qaadan maayo kaa xamar ka imanaya ninka difaacaya waa hunguri dhaqameed suxufiga la sixray ee qarankeena lagu duminaya ninka difaacaya waa hunguri dhaqameed mashaariic dadka laga hirgelinaya ka hortaagan waa hunguri dhaqameed doontii ugu dambeysay reer burcay u badnaayeen dhalinyar reer burcay u badnaayeen oo wallaahiya ee yeman lagu duqeeyey dhalinyar bay ahaayeen maalin walba dhalinyartii sidaasay badda ugu dhammaanaysaa maalin walba hooyadii way ooyeysaa oo waxay la ooyeysaa waxa weeye hantideedii iyo ilmaheedii bay waayeysaa waxba ma soo kordhinayaan dalkii ma badbaadinayaan abaaro waxba ka qaban maayaan dhalinyartii mashaariicu ma furayaan dhalinyartaa shawda ku mashquushay ee istiri balqaadkaad kaga mashquushide weliba lacagtay ururiyaan abaaraha ugu darayna koofiyaday u soo xidheena waa dhaqan xumo bay yidhaah horumar ma ogola mashaariic ma ogola wanaag ma ogola nin walba wuxuu leeyahay dhulkii ree hebel baa ree hebel dhisanayaan ma dadkaasaynu eeganaa ilaahay baan kugu dhaarsheeyey waxaan xukuumadda leeyahay dalka xukuumad baa ka talisay hunguri dhaqameed kama taliye xabsiga ha ku gurto dhulkana ha la wareegto soomaaliyana khatar cadayn bay bilowdaye wasiirka arrimaha gudaha ciidanka amniga CID-da wasiirka maxaa ku dhaayay maaliyadda dhammaan xukuumadda labada gol qaran waxaan ugu baaqayaa ajnabiga oo dhan dalka in laga raafo number 1 qadaadweynta in laga raafo
sixir bay bilaabeen caruurtii bay cunayaan dhaqan xumay bilaabeen oo guryihii iyo suuliyadii bay ku xidhayaan kamarad cid alla ciddii hadashana meeshay tagaan ha loogu tago BBC-dii lagama madnuucin dalka VOA-dii lagama madnuucin Universal lagama madnuucin kalsan lagama bal ilaahay baan kugu dhaarshay maxay kugu qabtaan cali xaraare waad arkaysa ma habeen dhaweeyay waxaan ka daawanayay kaftanka qosolka ma kaftan qosolba cali xaraare madaxa cadaada midoobay sumarsada gobolada barigu ka soo jeeda dadkiisii abaaraa dhameeyay halku dadkiisa wax ka tari lahaa buu kaftanka siyaasadda ku soo kordhiyay maalin walba warbaahin baa laga eriyaa munaafaqada iyo isku dirka iyo cayd cali xaraare wuxuu yidhi shaqaalihii berbero oo dhan waa la eriyey buu yidhi waxaana la keenay buu yidhi berberaa Senegal miyaa ahayd mise Singapore baa la keenay buu yidhi shaqaalihii berbero oo dhan waa laga saaray mushaarkiina bal ninkaa weyni beenta iyo wuxuu media la soo fadhiisanayay faqash dhalay weey ninkaa xume bilaa dhaqanka waxa soo meedhan baan ugu dhex jira warbaahintu ka shaqeeya toos loola hadli karaa waxa la leeyahay 24 saacadood gudahood ninka hadaad naga qaban weydo adiga ka shanlayn doona waayo warbaahinta suxufiga jooga waxa ka mas'uula ninka warbaahinta la ka mas'uula ninka warbaahinta leh wasaaradda warfaafintu nin kasta oo suxufiyo oo qarannimadeena iyo jiritaankeena iyo arrimeena soo faragashada sida Aamina Muuse Weheliyo kale Aamina Muuse Weheliye xaq uma leeyna ka hada Cabdi Maalik xaqna uma leeyna Faysal Cali Waraaba sida ula hadasho markaaba waxa la hadlayaa warbaahinta ay ka hawlgalaan suxufiyiintu degdeg waan looga dacweeyaa la naga qabo suxufiyiintan bilaa dhaqanka ee bilaa anshaxa ee qabiilka iyo cuqdada iyo cufiga la fadhiyo warbaahinta iyo xaqiraada iyo propagandaha degdeg nooga qabo meeday wasaaradii warfaafintu waxa ku soo gabagabeynaya xukuumaddu waa inay amaawiirteeda fulisaa saxaafadda madaxa bannaan dalka waa inay ka madnuucdaa ee koonfurta Soomaaliya dadka Soomaaliyana waa inay raaftaa maxaynu ku wada hadlaynaa marka oromada laga raafa dalka sidaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka xiga waxaan kaga hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo barnaamij ha walaalo naslu deeg halka Soomaaliland ka dhimatay waxa weeye waa suxufiyiinteena weeye dad bilaa dhaqan oo bilaa dhiiga bay noqdeen suxufiyiinteena ahayd in qadiyadeena iyo madax banaanideena iyo qarannimadeena ay difaacaan cadow bay noqdeen oo waxa ay u kala dab qaadayaan waa saddexdii xusbiyo xukuumadii inaan yaroo suxufiyiba waxa uu ku soo shacbaha propagandada iyo cayda xataa baraha bulshada saameyn kuma leh sida inaga iskugu kandirayaan ee ay dadkeena warka u rogayaan haday cadawgana propaganda ugu sameyn lahayn maciil baynu qabi lahayn suxufiyiinta koonfurta Soomaaliya waad aragtay waxa ay u midaysan yihiin waa propagandada iyo cayda iyo burushka xaarka leh Soomaaliland marmariyaan magaca Soomaaliland ma soo qaadaan kuweeniina nin kaliya suxufiya marka Cabdi Maalik laga reebo oo baraha bulshada saameyn kula miyaad aragtay keena suxufigiina wuxuu yiraahdaa suxufi Soomaaliyeed baan ahay oo anigu uma doodhan dhexdhexaad baan ahay war BBC-du ma dhexdhexaad baa waa qabiil waa raadiyo dameero joog weey VOA-du ma dhexdhexaad baa waa qabiil waa raadiyo dameero joog hawiye mooyaan cid kale ma leh Universal koonfur weey magaca Soomaaliland ma soo qaato wax kasto horumar way kala kiciyaan kalsan adigu maxaa ku diiday inaad ayam Soomaaliland ku faanto suxufi Soomaaliland aan ahay jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalayaal aad iyo aad baan idin salaamayaa fiidiyowga share gareeya barnaamijkan xiga waxa aan hadii Ilaahay yiraahdo ku soo bandhigi doonaa arrimaha saxaafadda barnaamijkeen imtixaanaha baan wadaynaa layrkii baa iga tagay waan aad iyo aad baan uga xumahay fiidiyowga share gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh